kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijyadeedka barqanimo ee warbaahinta Soomaali Vlogger Media qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan barnaamijyadeedkeena waxaa ka mid ah Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo weerar toos ah ku qaaday madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubnaha kale mucaaradka xilli uu hadallo adag ka jeediyay Caashe Sharaf xalay ka dhacday Muqdisho waan soo qaadan doonaa qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamijyadeedkeena waxaa ka mid ah ciidamadii uu ku aaminayay Cabdicasiis Lafta Kareen oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya kana mid noqday ciidamada ku sugan magaalada Baydhabo haddaba waxaad daawan doontaan maxay tahay ballanqaadka rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya u sameysay ciidanka daraawiishta koonfur galbeed oo ku soo biiray dowladda waan soo qaadan doonaa qodobada kale waxaa ka mid ah dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay qaadi doonto tallaabooyin sharci ah oo ka dhan ah shirkado iyo shakhsiyaad lagu eedeeyay inay si sharci darro ah uga faa'iideysanayaan kheyraadka macdanta dalka haddaba waa kuwee shirkadaha iyo shakhsiyaadka dowladda ay u hajamtay waa soo qaadan doonaa waxaad kaloo daawan doontaan golaha mustaqbalka Soomaaliya oo u digay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud fariin adag u diray ciidamada dowladda haddaba waa maxay fariinta ay direen waan soo qaadan doonaa qodobadaas iyo qodobada kale nagu soo kordhaya daawadayaal ku daawan doontaan barnaamijyadeedka barqanimo ee warbaahinta Soomaali Vlogger Media haddii aad nagu cusub tahay daawade nagu soo biir oo subscribe saaro channelka haddii aad hore nala joogtana waad ku mahadsan tahay waxaan kaga codsanaynaa muuqaalka like saar sina share kare waa hagaag ku bilaabo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa jeediyay hadallo aad u kulul oo si weyn u saameeyay siyaasadda dalka xilli uu ka hadlayay Caashe Sharaf xalay ka dhacday magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha ayaa si gaar ah u amaanay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo tilmaamay guulaha ay ka gaareen dadaalada ka socda Shabeellaha Hoose, Shabeellaha Dhexe, Bay, Boqol iyo Jubbooyinka isagoo yiri weli aad ka gaarteen howlgalladaasi aad cadowga kaga xoreyseen waad ku mahadsantihiin xilli uu xalay uu ka jeedinayay khudbad Caashe Sharaf lagu dhiirigelinayay ciidanka xoogga dalka oo shalay u dabaaldegay sanad guurada 66 ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka xoogga dalka wuxuu ra'iisul wasaaruhu si cad u muujiyay muhiimadda difaaca dalka hadalka ra'iisul wasaaraha ayaa markaasi kadib waxa uu isu bedelay weerar siyaasadeed oo toos ah isagoo si gaar ah u beegsaday madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo xubnaha kale ee mucaaradka kuwa oo uu ku eedeeyay inay carqaladeynayaan dowlad dhiska iyo xasiloonida dalka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada haddii ay istagaalaan mar walba waxaa saxan dowladda Soomaaliya oo madasha shacabka halka maamul goboleedku uu ku kooban yahay dana gaar ah ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sidoo kale wuxuu si adag u weeraray xubnaha mucaaradka ah ee dhaliila dowladda isagoo sheegay inay ka shaqeynayaan kala qaybsanaanta bulshada halkii ay ka taageeri lahaayeen midnimada dalka mucaaradku haddii uu noqdo mid qaran dumis ah oo ka shaqeeya dana gaar ah wuxuu dib u dhigayaa horumarka dalka iyo amniga ayuu yiri Xamse Cabdi Barre Xamse Cabdi Barre ayaa si gaar ah uga digay askarta ka shaqeysa qabiilka isagoo yiri askari qabiil ku xirma oo u dagaalama waa in laga saaraa ciidanka iyo Soomaalinimada waxa uu la mid yahay qof ka baxay diinta ayuu yiri Xamse Cabdi Barre oo xalay khudbad ka jeedinayay Caashe Sharaf ka dhacday Muqdisho ugu dambeyn waxa uu cadeeyay in dowladda federaalka aysan cidna duulaan ku ahayn balse ay diiradda ay saareyso difaaca dalka iyo ilaalinta xuduudaha hadalkan ayaa imaanaya xilli uu cirka isku shareeray khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka iyadoo sidoo kale ay sii kordhayaan dhaliilaha uga imaanaya mucaaradka kuwaasi oo weli iyaguna aan si rasmi ah uga jawaabin eedeymaha culus ee loo jeediyay dowladda Soomaaliya iyo xubnaha mucaaradka ayaa iyagu waxay yihiin kuwa si weyn isku haya iyadoo madaxweynaha dowladda Soomaaliyana uu koobabsi u sii marayo wax ka yar 30 maalmood ayaana u harsan dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ra'iisul wasaarihiisa ayaana xalay weerar toos ah waxa ku qaaday madaxda mucaaradka oo ugu horeeyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani geesta kale ciidamada daraawiishta koonfur galbeed ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Baydhabo kuwaasi oo ku sugnaa deegaanka Ootiin leh tan iyo markii uu xukunka baneeyay madaxweynihii maamulkaasi Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Kareen dib u soo celinta ciidankan ayaa ku timid dadaalo guuleystay oo maalmahan ay wadeen taliyaha hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Mahad Maxamed Salaad taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Generaal
asad cismaan cabdulaahi mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo madaxda maamulka koonfur galbeed. taliyayaasha ciidamada qaranka ayaa kulan ay la yeesheen saraakiisha iyo ciidamada daraawiishta koonfur galbeed kula dardaarmay inay sii wadaan shaqada adag oo ay u hayaan bulshada Soomaaliyeed. waxay sidoo kale caddeeyeen in dowladda ay bixin doonto dhammaan xuquuqaha ka maqan isla markaana ay siin doonto xuquuq la mid ah tan ciidanka qaranka ay haatan ay qaataan. saraakiisha hogaaminaysay ciidanka daraawiishta koonfur galbeed ayaa dhankooda uga mahadceliyey dadaalada mas-uuliyiinta dowladda iyagoo sheegay inay diyaar u yihiin gudashada waajibaadkooda qaran. ugu dambeyn, ciidanka daraawiishta koonfur galbeed iyo saraakiishooda ayaa dib loogu soo celiyey magaalada Baydhabo iyo xaryihii ay markii hore ay ka howlgalayeen. ciidankan ayaana iyagu waxay ka mid noqonayaan ciidamada dowladda. magaalada Baydhabo ayaana haatan amnigeeda si gaar ah loogu xil saaray ciidanka booliska Soomaaliyeed, halka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka howlgalayaan hareeraha magaalada si ay markaa u xaqiijiyaan difaaca guud ee magaalada iyo deegaanada ku xeeran. magaalada ayaa sidoo kale lagu soo rogay bandow habeenkii ah iyadoo la soo saaray awaamiir mamnuucaya in hub lagu dhex qaato gudaha magaalada. sidoo kale waxaa la adkeeyey baaritaanka gaadiidka iyo dadka soo gala ama ka baxa magaalada Baydhabo si buuxdana loo hubiyo amniga lagana hortago wax kasta oo khatar gelin kara xasiloonida xilli halkaasi laga qabanayo doorashooyin lagu soo dooranayo hoggaanka cusub ee maamulkaasi. ciidankan ayaana tiradooda waxaa lagu sheegay ilaa 2,000 oo askari, kuwaasi oo ka mid ahaa ciidamadii ka amar qaadanayay madaxweynihii maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftakareen, kaasoo waqtigan ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. dhinaca kalena, daawadayaal, dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay markaan ku dhawaaqday inay qaadi doonto tallaabooyin sharci ah oo ka dhan ah shirkado iyo shakhsiyaad lagu eedeeyay in ay si sharci darro ah uga faa'iideysanayaan kheyraadka macdanta dalka. go'aankan ayaa yimid xilli ay sii kordhayaan cabashooyinka la xiriira qodista iyo dhoofinta macdanta oo aan waafaqsaneyn shuruucda dalka. wasiirka batroolka iyo macdanta dowladda Soomaaliya Daahir Shire Maxamed ayaa sheegay in Soomaaliya ay leedahay kheyraad macdan oo aad u ballaaran, balse ay hareeyeen falal sharci darro ah oo si xiriir ah u socda. wuxuu tilmaamay in dowladdu ay haatan wato qorshe lagu ogaanayo cid kasta oo ku lug leh howlahan si tallaabo sharci ah looga qaado. wasiirka ayaa xusay in macdan gaar ahaan dahabka si sharci darro ah looga dhoofiyey dalka sanadihii u dambeeyey, taasoo lagu qiyaasay in ka badan $331 milyan. arrintan ayuu ku tilmaamay mid si weyn u dhaawacaysa dhaqaalaha dalka iyo ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga. sidoo kale, Daahir Shire ayaa muujiyey walaac xooggan oo ku saabsan shirkado iyo shakhsiyaad si qarsoodi ah uga faa'iideysanaya macdanta, isagoo xusay in inta badan howlahan ay ka dhacaan deegaano ay bulshada deegaanka qaarkood si toos ah ugu lug leeyihiin, sida isla markaana macdanta lagu kala iibsado si hoose. wuxuu tilmaamay in falkan sharci darrada ah ay ka jiraan gobollada Sanaag iyo Bari ee maamulka Puntland iyo sidoo kale gobolka Awdal ee Somaliland, halkaas oo uu sheegay in warbixino badan horey looga diyaariyey. wasiirku waxa uu qiray in dowladda aysan weli si buuxda u gaari karin dhammaan goobaha laga qodayo macdanta. wuxuuna intaasi ku daray in sharci cusub oo lagu maareynayo kheyraadka macdanta uu marayo heer gabagaba, isla markaana la filayo inuu dhaqan galo marka uu saxiixo madaxweynaha Soomaaliya. wuxuu xusay in sharcigan cusub uu xoojin doono awoodda dowladda ee la dagaalanka macdanta sharci darrada ah iyo ilaalinta kheyraadka dalka. ugu dambeyn, daawadayaal, golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ayaa si adag ugu digay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud inuu ciidanka xoogga dalka u adeegsado dano siyaasadeed oo gaar ah. golaha mustaqbalka oo hambalyo iyo bogaadinba u diray dhammaan xubnaha ciidanka xoogga dalka munaasabadda sanad guurida 66 ee kasoo wareegtay aasaaska ayaa ciidanka ka dalbaday inay ka fogaadaan
kumilanka siyaasadda islamarkaana ay iska diidaan amar kastaahi oo aan ku dhisnayn dastuurka dalka iyo xeerarka ciidanka xoogga dalka. goluhu wuxuu la socdaa in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu muddaxileedkiisu ka harsan yahay 32 cisho in uu wado dhaqdhaqaaqyo muujinaya in hay-adaha amniga uu ku jiheeyo difaaca danihiisa siyaasadeed, taasoo khatar gelin karta haykalka dowladnimada ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay golaha mustaqbalka Soomaaliya. sidoo kale golaha ayaa si cad u dalbaday in ciidanku ka fogaado xadgudubyada lagu geysanayo magaca iyo sharafta ciidanka. saraakiisha ciidanku waa inay ogaadaan in sharciyada madaxweynaha ay ka harsan tahay maalmo kooban, sidaas awgeed waa in aanay ku kadsoomin dhalanteedka xukun boobka ah kaas oo isla xisaabtan dhab ah uu ka dambeyn doono ayaa lagu yiri qoraalka. digniintan ayaa imaanaysa xilli uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku faanay awood ciidan oo xooggan, islamarkaana uu si cad u sheegay in ciidanka xoogga dalka ay diyaar u yihiin inay aadaan meeshii ay u dirto dowladda federaalka, ayna howlgal gaar ah ka sameyn karaan goob kasta oo ka mid ah goobaha ama iladii gobolada dalka. dowladda federaalka ayaa dhowaan awood military ku qabsatay magaalada Baydhabo oo ah xarunta ku-meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed, iyadoo haatan uu maamulkaasi ka arrimiyo hogaamiye ay dowladdu si ku-meel gaar ah ugu magacaawday. digniintan ka soo baxday xubnaha mucaaradka ayaa ku soo aadaya xilli muddaxileedka dowladda Soomaaliya uu marayo heer gabagaba ah, waxaana soo daraya digniinta kala duwan ee ka soo baxaya mucaaradka Soomaaliya ee ka soo horjeeda dowladda uu hogaamiyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud. waad ku mahadsan tahay daawade haddii aad nala soo gaartay ilaa dhamaadka muuqaalka. waxaan ka codsanaynaa like sar muuqaalka sina share kare